dagaal u dhexeeya beelo walaalaha ayaa ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaanada hoostaga degmooyinka Balcad iyo Cadalle iyadoona la sheegay in dirarta ay salka ku hayso dhul daaqsimeed waxaana jirtay khasaaro ka dhashay dagaal beelootadii ugu dambeeyay ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana sidoo kale jiray in maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe hore uu guuleystay in nabadan uu dhex dhigo beelo dirar ay ku dhex martay barigan gobolka Shabeellaha Dhexe hayeeshee gobolka Shabeellaha Dhexe oo kaliya ma aha marka loo eego Hirshabeelle waxaana jirtay dagaal beeleedyo iminka ka soo cusboonaaday deegaanka Ceeljuqo oo kamid ah deegaanada hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan kaas oo u dhaxeeya dad reer miyi ah madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dirarta iminka ka soo cusboonaatay deegaanada hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxa uu sheegay in iminka aan loo baahnayn in dadka ku nool deegaanada hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan in ay dhiig macno daraha ay ku daadiyaan waxaana taas beddelkeeda odayaasha dhaqanka ah ee labada dhinac uu ka dalbaday in dirartaasi si shuruud la'aan ay u joojiyaan isla markaana ay dhex galaan beelaha walaalaha ay dirarta ay u dhaxayso madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa sidoo kale war-saxaafadeedkiisa ku sheegay in dagaalkan uu yahay mid sii dhiirigelinaya dagaalamayaasha al-shabaab ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in Hirshabeelle ay diyaar u tahay in ay dhexdhexaadin ay u samayso beelaha walaalaha ee dirarta ay ku dhex marayso deegaanada hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV-ga Kalsan Jowhar